السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدين سلام دمان أصحابتك ويرن هالكان كريتيفيتي أكاديمي. waxaan rajayna in caafimaad qabtaan dhamaantiin. Kanina waa cashirkeeni saddexaad waxaan ku baran doonaa sida loo isticmaalo toolska Adobe Photoshop. Marka la socod wanaagsan Photoshop markaas aan u soo dhaxgalno qaybtaan inaan barno waa qaybtan toolska. qaybaha ugu muhiimsan oo la isticmaalo marka design sameynaysa qaybaha ugu muhiimsan iyo waxa loo isticmaalay dhamaan waa isla arki doonaa. toolskan oo hadda qaybtaan marka ka qarsoon sida loo soo saarto dhamaan waa isla arki doonaa. hal mar aan kormarinaa qaybta ugu horeysa waxaa la yiraahdaa move tool. wuxuu qabtaa marka move toolka waa isla arki doonaa wuxuu qabto. qaybtana tagaysa waxa soo qaadanayna shape markaas aan u soo qaadano shape markaas aan u dhigto shapeska ma dhaqdhaqaaji karto ilaa aad soo qaadato ilaa aad tagto move toolka la'aantiis waxa ma dhaqaaji karto sawir ahaada ama qoraal ahaada. marka design sameynayso move toolka oo u baahan tahay oo kama marantid. markaas aan u tagno waa kaas oo dhaqaaji kartaa meesha rabta geesi kartaa. move tool la'aantiis wax ma dhaqaaji karto oo move toolka waxaa loo isticmaalaa in ku dhaqaajiso shayga ama sawirka meesha yaala wixii meesha yaala loo tirgalay in ku dhaqaajiso. haddii aan u tagno midkan kale oo ah selection rectangle tool la yiraahdo asagana oo qayb kamid ah selectionka asagana wuxuu qabtaa iyo wixii kale hadda isla arki doonaa. haddii aan dhaano saan u xariiqno midaan waa delete kartaa oo qayb delete colorkan waa ka bedeli kartaa haddii aad rabto. intaan hadda delete taabto waa delete kartaa oo saas qaybta delete taabani haddii aad delete haddii kalena waxaa ka bedelaysaa colorka oo qaybtan waxaa tagay packagekan colorka rabtaa ku shubani qaybtan colorka rabtaa ku shuban kartaa. wakaas qaybtaas asagana saas loo isticmaalaa oo ah selectionka. oo hadda haddii aan qaybtan oo selectionkan ku saaran si loo laabtaa waxaa ugu laaban kartaa inaad dhahdo control D waa control hadda ku soo celino waa control iyo maxaa isla qabani plus D saas ku noqonayaa. hadda haddii aan midkaan colorka bedelno soo dooranaysaa si color ahayn colorka rabtaa ku shuban kartaa. qaybtaas saas loo isticmaalaa. qaybta kalena waxaa waayo inaan tagno brush toolkan iyo muxuu qabtaa brush toolka waa isla arki doonaa asagana. waa kaas saa markaan dhahno asagana waxaa loogu tirigalay inuu meeshan lagu brusho oo saan loo isticmaalo. colorka rabtaa u yeeli kartaa saa rabtaan u isticmaali kartaa. waxaa la yiraahdaa brush tool. hadda waa khafiif haddii aad rabto inaad ka dhigto rasiin ahaan oo ina soo wada muujiso kana ku dhafanaysaa halkaas saana kugu soo wada muuqanaya oo sidaana ka dhigan kartaa. oo wada aragnaa u malaynaya qaybtaas haddii halkaas ugu soo tagno oo sidaas loo isticmaalaa. qaybta ku xigtana waxaa waaye pen toolkaas shape ku samaysan karaa oo haddii aan soo doorano pen tool saa arkaysaanba shape ay u noqday oo ah wax walba u baahan tahay ku samaysan kartaa pen toolka. haddii kan inta dhigno oo haddana markale soo qaadano saana leedahay wax walba u baahan tahay ku samaysan kartaa pen toolka. asagana cashir gooni ka sameyn doonaa si loo isticmaalay iyo dhamaan wax walba u baahan tahay cashir gooni ka sameyn doonaa. wax walba u baahan tahay ku samaysan kartaa iyo shape walba nooc walba ku samaysan kartaa. haddii aan ugu soo tagno dhanka shapeska halkaas ugu soo tagno qaybtan toolska waa isla wada aragnay. haddii aan tan yiraahno oo halkan ku qorno waatan qaybtan waa qaybtii oo fontiga ka bedelinaysa oo fontiga rabta ana saaran kartaa. haddii aan kuwan iska xirno saa isku wada aragno halka markaa kaysano waxa ku qori doona Creative Academy. saa markaa u qorno fontiga haddii aan rabno inaad color ka bedelo qaybtan aad tagaysaa oo colorka rabta saaran kartaa. in color u baahan tahay saaran kartaa color markaas aan u bedesho. haddii aad rabto fontiga inaad iska bedeshana qaybtan kala tagi kartaa oo ina fontiga iska bedesho. in fontiga u baahan tahay saaran kartaa. haddii tan oo kala saarno saas oo noqonaya. intan waa booldigeedii iyo wax walba ka saaran kartaa. tan mana hadda midaan oo kale hadda tagno qaybtan waa booldigeedii iyo yaranteedii weynaynteedii dhammaan halkaana loo isticmaalaa. sidaa markay tahay qaybtan waa qaybta laga weynaynay. haddii aad rabto inaad weynaysatay haddii aad rabto inaad yaraysato haddii aad rabto inaad yaraysatay haddii aad rabto inaad weynaysato. qaybtan fontiga halkaas haddaan usoo tagno cashir gooni ka sameyn doonaa. asagana waa isla wada arki doonaa wuxuu qabtay iyo sida loogu sameeyay dhamaan waa u tagi doonaa cashirkaas. qaybtii ugu dambeysa waxaa waaye qaybtan toolska haddii ay kaa qarsoonto sida loo soo muujisto. hadda waxaan tagi doonaa qaybtan windowga meeshaan ay ku qoran tahay tools meesha option ka hooseysa tools ku qoran tahay. haddii aan jagta ka qaadno waa kaas meeshaan wax tool ah ay ma saarno laga yaabo inay saan kugu dhacdo
kabacdi waxaad tagaysaa window meeshaan la jegta saaranaysaa meesha hadday kusoo muuqan qayb meeshaan loo hoos loo socdaa jirto laakiin halkan isoo saaraya markaas aan ugu dhufto halkan boom halkan kusoo saaraya intaan ku keenina maanta cashirkeena waxaan rajeynayaa inaad soo practice gareyn doontaan oo intaan ku soo celcelin doontaan inta aan design-ka ugu gudbayno horta waa inaan fahnaa toolskiisa sida uu shaqeeyo Adobe Photoshop markaa fahanti ka bacdi la u gudbi kartaa qaybta design-ka intaan waa inaan ku soo practice gareysaa oo ku soo celcelisaa qayb walbana magaceedana inaad qorataa sida dhow ku anfaco aan ku mahadsantahay daawashadaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.